gudoomiyaha degmada Dharkeynley Gohaad Sheekh Xasan ayaa si ugu dhabeeyo ballanqaadyadii oo ka hor ballanqaaday shacabka ku dhaqan degmada Dharkeynley ayaa waxa uu maanta bilaabay oo looga qaadaya carrada soo buuxisay qaar ka mid ah wadooyinka degmada Dharkeynley oo dhibaato ay ku qabeen dadweynaha iyo gaadiidkuba isaga oo la kaashanaya waaxda howlaha guud ee gobolka Banaadir ugu horeen mid ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka ayaa ka hadlay baahida ay u qabeen in wadadan carrada looga qaado wadada suuq Boocle ilaa iyo wadada Nuur Adduunyo dhibaato fara badan ayaa lagu qabaa Masjid Nuur jameecada masaajidka waa ay gali laadahay waana dhibaato gudoomiyaha degmada Dharkeynley Gohaad Sheekh Xasan Cali ayaa ballan qaaday in uu ka dhabeyn doono hadafyada uu ka leeyahay degmada Dharkeynley ee ah in Dharkeynley ay baratan xooggan la gasho degmooyinka kale ee gobolka Banaadir maanta u jeedaan inaan bilaabayno sidii aan u furi lahayn wadadan muhiimka ah ee shacabka degmada Dharkeynley maalintii la magacaabay ilaa iyo shalay ay su'aalo badan naga weydiinayeen annaga maanta laami ma saareyno laakiin wadadii aan fureynaa oo dhiiqadii tiilay iyo carradii aan ku fidinaynaa waxaan rajaynaynaa waqti aan fogeen ha noqoto walbangi ama ha noqoto shacabka Madiino oo wadajir iyo Dharkeynley in wadadan oo laami ah oo biyo aan fariisaneen oo biyina la maareey in dhawaa la arki doono runtii gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Finishne aad wuxuu ugu mashquulsan yahay sidii wadadan jaalisiyaad loo dhisi lahaa wuxuu kala hadlay qolooyinkii gacanta ku hayay wuxuu kala hadlay guddi labada degmo wadajir iyo Dharkeynley degan xala ugu dambeysay agaasimaha howlaha guud iyo aniga oo nagala hadlayay sidii wadadan ilaami u noqon lahayd waxaan rajaynaynaa marka qoladii walbangi oo balan aan leenahay iyo guddiyadii aan sameeyno oo kulmi doonaan kadib inaan sheegi doono waqtiga ugu dambeeya ee shacabka Madiino ee wadadan heli doonaan waxaan ayagana ka rajaynaynaa inay diyaar u noqdaan haddii ay noqon lahayd dhinacooda heel iyo hoo inay la garab istaagaan maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Dharkeynley sababtoo ah wada laamiya oo dhirkeed intaan la eegyahay in gobolka uu dhiso ama degmo ay dhisto waxay noqonaysaa wax oo taariikhi ah laakiin loo baahan yahay labada shacab ee wadajir iyo Dharkeynley inay kaalinkooda qaataan waxaan kaloo leeyahay reer Madiina waa inay nadaafadda ka shaqeeyaan waa inay geedaha loo yaqaan cala garabta iska jaraan sidii aan ku ballanay gudoomiye waaxidada iyo gudoomiye ku-xigeenada shaqadaas oo bilaabatay waxaan rabnaa in wadooyinka la furo oo waxaan bilaabi doonaa in jidcadayaasha aan furno hadduu ilaa yiraahdo shaqo isku duuban oo noqon doonto insha Allah tacaala shaqo karaasha boqolka maalin ay soo socoto ayaan qaban doonaa reer Dharkeynley waxaan leenahay ha sugina maamulka degmada oo kaliya ha sugina maamulka gobolka oo kaliya wixii tabartiin ah kartidiina ah ee aad awoodaan oo hiil iyo hooba la garab istaaga maamulka degmada iyo maamulka gobolka Banaadir agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Muuse Carayo oo madasha goobjoog ka ahay waxa uu ballan qaaday in dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ay ka bilaabayaan olole ku saabsan bilcusoo celinta marka waxaan leeyahay wadada wixii leedan kaga qaadana waxay imaan doontaa haddii gudoomiyaha joogana asaa dhamaystiri doono lagala xisaabtami doona hadduu bedelayana wixii balance haraa leedin sheegi doona marka dadku wixii la qorsheeyay inay bixiyaan dad aan isku tashanna horumar ma gaarayaan Ibrahim Xaaji Yusuf warbaahinta gobolka Banaadir Muqdisho.